bismillaahi raxmaani raxiim wacanow wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show waa 11 bisha 12 sanadka 2021 qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah 4 dowladood oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu kaga mahadcelinayo dagaaladii ka dhacay dalka Itoobiya inay dhinaca kale u weeciyaan caasimadda Addis Ababa ka badbaadiyaan kooxihii weerarka ku soo qaaday macluumaadka ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee droonka saameyntii ay ku lahaayeen dagaalada ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya burburka xooggan ee ka muuqanaya magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Itoobiya oo diyaaradaha dagaalka cagta ay mariyeen iyo wararkii ugu dambeeyay Abiy Ahmed wada hadallada uu la yeelanayo madaxda caalamka ayaan kugula wadaagi doonaa qaybtan ku soo dhowow mar kale barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show barnaamij wareedka duhurnimo ayaad daawanaysaan markaana u diyaargarow inaad daawato macluumaadkaas oo intaa kasii faahfaahsan dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya oo qaatay 13 bilood ayaa lagu waramayaa dhinaca kale inay markii ugu horeysay dowladda federaalka Itoobiya ay u weecisay dagaalka kaga imaanaya kooxaha Tigreega ee inta badan gacanta ku haya deegaanada dhaca waqooyiga dalka Itoobiya iskuna daya inay qabsadaan dhanka koonfureed iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya dowladda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dowladda dhowr kaga mahadcelinaysa dagaaladii ugu dambeeyay waqooyiga Itoobiya ka dhacay iyo guulihii ay diyaaradaha dagaalka ay ka soo hoyeen dagaalada ka dhacay dhanka waqooyi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed markii furimaha dagaalka uu ku biiraya waxa uu watay isku haleynta ama kalsoonida la xiriirta in afartaani dowladood diyaaradahooda droniska door weyn ay ka ciyaari doonaan in dhanka kale ay u weeciyaan dagaalada ka dhacaya dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya warbaahinta Al-Jazeera ayaa baahisay macluumaad ay ciwaan uga dhigtay sidii ay diyaaradaha droniska dhanka kale ugu weeciyeen dagaaladii ka dhacay waqooyiga Itoobiya haddii aan ku horumarno dowladda Shiinaha waxaa lagu waramayaa taageero xooggan inay siisay dowladda Itoobiya gaar ahaan in saldhigyada ciidanka militariga ee dowladda Itoobiya lagu arkay qaar ka mid ah diyaaradaha dowladda Shiinaha ay farsamayso ee Wing Long 2 loo yaqaano diyaaradahaas ayaa lagu waramayaa in bishii Agoosto la geeyay gudaha dalka Itoobiya waxaana lagu waramayaa inay ahaayeen kuwa door weyn ka ciyaara isbedeladii ka dhacay dalka Itoobiya sidoo kale dowladda Iiraan ayaa diyaarado dagaal waxay ku taageertay dowladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed waana mid keentay inay duqeymo xooggan ay ka geystaan fariisimaha cadowga diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ee Bayraktar TB2 ayaana la xaqireynin doorkii kama dambaysta ay ku lahaayeen dagaaladii ka dhacay waqooyiga Itoobiya waxaan dul istaagaynaa macluumaad ku saabsan diyaarad kasta iyo awoodda ay u yeelatay inay dhanka kale u weeciso dagaaladii ka dhacay waqooyiga Itoobiya aan ku hormarno diyaaradaha dagaalka ee dowladda Shiinaha diyaaradahani loo yaqaan Wing Long 2 waxaa la sheegay in lagu arkay qaar ka mid ah saldhigyada ku yaala dhanka waqooyi ee magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya saldhigyadaas oo ay ku sugnaayeen ciidanka militariga ee dowladda Itoobiya markii diyaaradahaasi la kiciyay waxay awood u yeesheen in ay burburiyeen fariisimo dhowr ay ku sugnaayeen ciidanka jabhadda TPLF diyaaradahan waxay awood u leeyihiin inay soo aruuriyaan macluumaadka dhanka sirdoonka waxa kaloo la sheegay inay awood u leeyihiin inay duqeeyaan saldhigyada iyo fariisimaha ay ku sugan yihiin kooxaha cadowga diyaaradda labaad waa Bayraktar TB2 diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ee Bayraktar TB2 waa mid ka mid ah kuwa garab istaaga xooggan u sameeyay ciidanka militariga ee dowladda Itoobiya waxay burburiyeen hub badan oo ay adeegsanayaan kooxaha cadowga waxaa la sheegay in ay maalinta ka dambaysa guulo la taaban kara ay ka soo hoynayeen dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya dhaqaalaha diyaaradan lagu soo iibinayo oo aad u yar hubinta ama xaqiijinta goobaha weerarka ka geysanayaan iyo in ay dayactirkooda diyaar ay ku yihiin goob kasta oo lagu dagaalamayo ayaa door weyn ka ciyaaray in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u dhaqaaqo dhanka iyo dowladda Turkiga bishii Agoosto halkaas oo taageero xooggan oo dhanka militariga uu ka helay saraakiil ka socota dowladda Turkiga oo la taliyayaal ay sidoo kale koox dhanka tababarka ayaana lagu waramayaa inay tababaro kala duwan ay siiyaan ciidanka dowladda Itoobiya taasi oo ku aadan ku guuleysiga adeegsiga diyaaradahan macluumaadka soo baxaya waxay sheegayaan in 3 bilood ee ugu horeysay ee sanadka 2021 in ka badan 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah wasaaradda difaaca dowladda Turkiga inay ka heshay dalka Itoobiya kuwaas oo bilihii Agoosto ilaa Sebteembar taageero xooggan u muujinayay dagaalada ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya howlgalladii diyaaradahani ay ka fuliyeen dhanka galbeed ee dalka Liibiya waqooyiga dalka Syria iyo gobolka Nagorno-Karabakh ayaa waxay ku soo bandhigeen awood ay u leeyihiin inay ka dhaqaaqaan goob kasta oo ay bartilmaameedsadaan xarumaha cadowga ay ku sugan yihiin iyagoo sidoo kale si gaar ahaaneed u burburinayay hubka ay adeegsanayaan kooxaha cadowga dowladda Turkigana waxaa lagu waramayaa in ay tahay dalka kaliya ee doorka weyn ka ciyaara isbedelada dhinaca kale loo rogay ee dagaalada waqooyiga Itoobiya
imaaraadka carabta waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay dalalka taageerada xoogan gaar ahaana taageerada militariga siinayay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. waxaana intiinii xasuusata bishii hore aan idinla wadaagnay macluumaadka ku saabsan saldhigyo ciidamada dowladda Itoobiya ay leeyihiin oo lagu arkay qaar ka mid ah saanada militari ee dowladda imaaraadka carabta ay u fidinaysay ciidanka dowladda federaalka ee Itoobiya. sidoo kalena diyaaradaha dagaalka ee Muhaajir 6 ee laga leeyahay dalka Iiraan ayaa dhanka kale u weeciyay dagaaladii ka dhacay dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya. dhammaan awoodaha diyaaradahani ay leeyihiin iyo xogo kale oo dhammaystiranna macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allahu tacaala. afartaasi dowladood waxay ahaayeen kuwii dhinaca kale u weeciyay dagaalada ka socday dalka Itoobiya, isla markaana Abiy Ahmed uu kaga mahadcelinaya taageeradii dhanka militari ay u fidiyeen waa Iiraan, Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo sidoo kale Shiinaha. kooxaha mucaaradkana wadamada reer galbeedka ayay taageero ka helayeen, laakiin tan iyo markii Turkiga dagaaladu ku biiray howlihii dhinaca kale ayay u weecdeen. qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay. markaana aan eegna macluumaadyada kale. dagaalada ka soconaya dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka ku nool deegaano dhowr ah, iyada oo xaalado xun ay wajahayaan. deegaano ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Daansha iyo Maydele ayaa muuqaalo laga soo duubay waxay muuqanayaan in ay yihiin kuwa gabi ahaanba burburay, iyadoo dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga Itoobiya midba midka kale uu ku eedeynaya burburka iyo khasaaraha colaadaha. goboladii ama deegaanadii amxaarada ee laga saaray jabhadda TPLF ayaa burbur xoogan uu ka muuqday. caalamka banaanbaxyo xoogan ayaa ka dhacay oo ay dhigayaan dadka Itoobiyaanka iyaga oo dalbanaya in wadamada reer galbeedka ay ka joojiyaan faragelinta Itoobiya ay ku hayaan. dhinaca kalena golaha amniga qaranka ee dalka Itoobiya ayaa kulan isugu yimid maalintii shalay kaasi oo looga hadlayay amniga iyo xasiloonida dalka Itoobiya. waxay golahu ay sheegeen in go'aamo ay ka soo saareen xaaladda guud ahaaneed ee dalka Itoobiya iyo jihooyinka xiga ee arrimaha amniga, gaar ahaan howlgallada ciidanka militariga halka ay ka sameynayaan. wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno golaha wasiirada ee Itoobiya dhankooda waxay meel mariyeen qabyo qoraalka dhismaha guddiga wadatashiga qaran ee dalkaasi kadib markii fadhigii koowaad ee maalintii shalay ay yeesheen, isagoo uu hogaaminayo ama uu halkaasi ku sugnaa ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kana soo laabtay furumaha hore ee dagaalka. guddiga shaqadoodu waxay tahay isu keenid qaran, taasi oo durba muujinaysa inay u dhaqaaqi doonaan sidii tala midaysan ay uga raadin lahaayeen ama dhanka wada hadal furidda ay u samayn lahaayeen. sidoo kale guddigan ayaa ka shaqaynaya sidii dalkooda ay ugu soo laaban lahaayeen muwaadiniinta Itoobiyaanka ee ku firdhisan gobolada kala duwan ee dalka Maraykanka. qorshahaas oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu wado, waxaana la doonayaa dhammaan muwaadiniinta dalka Itoobiya laga soo saaro dalkaasi Maraykanka oo dalkooda ay maal gashadaan mar haddii Maraykanka muwaadiniintiisa uu kaga digayo ku noolaanshiyaha Addis Ababa. ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii xafiiska uu ku soo laabtay waxa uu wadaa telefoon kula hadlidda mas'uuliyiinta kala duwan ee caalamka. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Canada Justin Trudeau, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. waxyaabaha ka wada hadleen waxaa ka mid ah xaaladda gobolka, gaar ahaan xiisadaha dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya iyo taageerada Canada. Dr. Abiy Ahmed ayaa si toos ah u bilaabay in uu iska dhisay xiriirada arrimaha dibadda kadib markii uu ka soo laabtay furmaha hore ee dagaalka, sheegayna in wejiga koowaad ee dagaalada ay soo gabagaboobeen. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maraca Show waa naginta. macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doona nabadgelyo.